وماسنت عبد الشكور marka hore maanta waxay ahayd 17ka bisha Ramadaan waa maalin deegaanada gobolada dhexe Soomaaliya aad ugu weyn waxa loo dabaaldegaa askartii ahlusunna wal jamaa uga geeriyootay dagaaladii ay la galeen kooxda al-shabaab dagaaladaas 14 sano ka hor deegaanadan ka dhacay munaasabadaas maanta oo ka socotay fagaaraha xurriyadda ee Shimbiroonshe waxa goobjoog ah madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Galmudug sida madaxa golaha wasiirada Dr. Sheekh Ahmed Shaakir gudoomiyaha guud ee ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax gudoomiyaha baarlamaanka ee Galmudug wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee maamul goboleedka Galmudug waxa sidoo kale isna goobjoog ahaa gudoomiyaha fulinta ahlusunna Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Cali Marashari qaybaha kala duwan ee ciidamada oo bandhig iyagana ciidana ku soo bandhigay madasha iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada reer Gurcaal munaasabada oo si jawi degan ah ku socotay gabagabadii markii munaasabadu ay soo dhamaatay waxa Cabdishakuur Ilaahay mahadi ah ciidamada ammaanka oo ka jawaabay ruux dhagar qaba ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab kaasoo doonayay isagoo soo dhaafay laba kamid ah goobihii ay fadhiyeen ciidamada iyo sidoo kale dadka sida gaarka ah lagu casuumay madasha qaybtii saddexaad ugu dambeysay oo ahayd qaybtii CIB da la yiraahdo oo madaxda culimada iyo mas'uuliyiinta maamulka ay fadhiyeen isagoo doonayay inuu tago ay qabteen ciidamada amniga waa uu dagaalamay alxamdulillah dabadeedna waa la qabtay waxa uu dhowr jeer isku dayay jaakadii uu watay inuu qarxiyo laakiin Ilaahay mahadiis ma suura gelin markii labaadna waxa kula dhagay askar sida gaarka madaxda u ilaalinaysay oo security dhacadka ah oo meesha taagnaa alxamdulillah waa la qabtay baaritaan ayaana hadda ay sameynayaan saraakiisha booliiska iyo kuna mas'uulada oo goobta joogay walina hadda baaritaankii waa u socdaa waxaan rajeynaynaa si dhow inaan uga soo jawaabno markii baaritaankaas uu soo dhamaado Ilaahay idmo laakiin kaliya waxaan ku xaqiijin karaa in la qabtay ruuxa dheer qabaha xaafadana si hordhaca aanu ula wadaagnay sawiradii iyo jaakadihii iyo filooyinkii uu watay uu doonayay inuu dadka maanta isku soo baxay u dabaaldegayay xuska 17ka Ramadaan ee lagu weyneeyo askarta ahlusunna wal jamaa inuu laayo marka baaritaankaas kadibna waxaan rajeynaynaa tafaasiil intaan ka badan inaanu bixino haddii Ilaahay waa ku gartay 17ka Ramadaan ahlusunna u tahay umaleena dadka deega qayb ka mid ah Galmudug sida kale waa 18 hadda taa ka socda Ibrahim ninka uu dagaalama tiri yani ma hub ku dagaalamay mise gacan inuu iskaga fujiyo dadkii qabanayo kale ninka horta markii uu soo gudbay si gaar ah dhaqaaqkiisa meesha dadka sida dhaqaaqyada loo socday ciidamo aad u tababaran oo madaxda ilaalinaysay ayaa meesha joogay markii uu soo galay oo kadib la qabtay markii ugu horeysay waxa uu baxsaday maxaa la yiraahdaa shaati ay laba galuus ku rafuray markii saddexaad uu doonayay inuu filooyinka taabtana waa markii labaad aan ku iraahdo waa marka la qabtay kadib wuxuu isku dayay inuu dagaalamo si uu maaragtay dadka markaas ay isaga fujiyo laakiin awood ka taweyn oo la soo saaray ayaa suura gelisay in ay isku kaashadaan bulshadii iyo ciidankii meesha taagnaa sidaas ayaana dhulka lagu dhigay waxaana suurto gashay kadib inta gacmihi laga qabto in baashi laga furo isagoo caadi markaas ay ciidamadu wadaan marka intaas ay ahayo wixii madasha maanta ka dhacay waxaana rajeynaynaa in mahadcelin iyo bogaadinba ay mudan yihiin ciidamadii amniga arrintaas ka jawaabay insha Allah baaritaankaas marka uu soo dhamaadana sida uu dhow macluumaad intaan ka badan hadii aynu helno inayna la soo wadaagno aad waa ku gartay marka intay waxaas dhacayaan oo kale Ibrahim madaxdu meesha ma fadhisay madaxda sida Sheekh Shaakir oo kale Sheekh Ascaari Macalin Maxamuud madaxdaas inta ninka uu soo galay inta isqabqabsiga socdo meesha miyay joogaan mise waa mar madaxdii baxday oo shacabku inay joogeen horta khudbada waxa u dambeeyay oo soo xiray wuxuu ahaa gudoomiyaha guud culimada ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax khudbadii markii dhamaatay microphone la qabsaday oo dadkii loo sheegay in madaxda ay baxayso ayuu ninkaanu meesha yimid markii xaaladda amniga intii ka jawaabayeen ciidamada amaankuna waxa madaxda laga bixiyay qayb kale oo meesha ay lahayd oo VIP da qaybta dambe ayaa madaxda laga bixiyay marka inta hawshan ay socoto waxa ay ahayd intii
gabagabada barnaamijka oo welina madaxdii ay fadhiso madaxdiina baabuurtii loo soo dhaweynayo oo ay diyaarinayso in madaxdii wasiiradii iyo xildhibaanadii joogay iyo culimadii meesha fadhisay ay bixi lahaayeen marka ma suuragelin in ilaahay fadliga ay meesha wax ka dhacaan laakiin sida qorsho isaga uu ahaa wuxuu ahaa inuu tago barta isaga laga qabtay oo howlgalka uu ku qabsaday iyo meesha maxaa la yidhaahdaa isaga uu u socday waxay isku jiraan wax ku dhow 15 tilaabo waa ku gartay ninka oo kale toole Ibrahim yani ma dhar ciidanka oo kale meesha jooga ilaalinayo isku soo ekeysiyay ma dhar shacab u watay yani qofka oo kale dharku watay maxaa noo sheegi kartaa wallahi ashkur inkastoo aniga qayb ahaan meesha hadda aan macluumaadkaas aan ka agdhoweyn oo markii dambe aan goobta dib ka imid oo shaqadayda qayb kale ay ahayd haddana yani sawirada aan qaarkood telefoonka ku qaaday iyo kuwo kale lasoo qaadayba waxay muujinayeen inuu wato dhar caadiya oo carabiya isla markaana cimaamad oo kale ay madaxa u saarneed oo ah dadkii meesha joogay badi sida ay maaragtay isku soo ekaysiiyeen waxa wata surwaal iyo funaanad iyo maaragtay shaati caadiya korna waxa uu ka watay marka waana yani astaanta inta badan dadkii meesha imaanayay ay wateen marka waxay taaba ashkur waxaan rajaynaynaa baaritaan intaan ka badan inaanu helno haddana kolley magaalada ciidamada ammaanku baaritaano ay ku xaqiijinayaan maadaama dad badan magaalada ay maanta la marti qaaday oo barnaamijka lagu marti qaaday ay joogeen iyo sidoo kale dad kii shacabka ah oo weli raxan u socda waxaa xilligan magaalada ka socda howlgal ciidamada kala duwan ay wadaan oo ammaanka maxaa la yidhahdaa hadda lagu xaqiijinayo iyadoo gaadiidka la istaajinayo dadkiina si maaragtay caadi loo baarayo marka waxaan rajeynayaa si dhow dadka ugu horeeya inaan idinla soo wadaagno markii macluumaadku soo baxo hadduu ilaahay idin waa mahadsan tahay mid iyo laba igu ka harsan Ibrahim markii ninka uu soo galay oo kale oo waxa inuu nin qarax sida meesha soo galay la ogaaday jawiga sidoo noqdo kale dhageystayaasha sharaxaad ka sii dadka miyay kala ordeen madaxdii ama shacabkii mise yani wax caadi ah la ahayd dadka iyagoo meesha iska joogaan hawsha furfurista iyo ninka qabashadiisa dhamaatay wallahi horta hawsha ninka lagu qaba ninku in aan ku filan 10 daqiiqo Cabdishakuur ninku maaragtay ninku wuxuu ahaa nin gaaban yani xoogan ayuu ahaa nin aad u diro ahaa markii uu yaraato 15 qof 20 qof aniga ku dhigneed oo shacab leh oo ciidan leh oo saraakiil leh marka dagaalkaas ninka inta uu waday shacabku aad bay mataqaanaa arrinta meesha usoo camiraan si sawirada ka aragtay markay dadkan deegaankan jooga waa dad isku xiran marka laga hadlayo dhinaca amniga waa dad isku kalsoon waa dad isku xiran oo bulshada iyo ammaankuba hay'adaha amniguba ay si wada jira u shaqeeyaan marka sida sawirada qaar aad ka aragtay xitaa waxaa ku jira dadka isaga wax ka wada markii nin gaariga la saarayay dad shacab oo ninba dhinac qof walba wuxuu waxay ku qeylinayeen meesha lagu toogto meesha lagu dilo yaan la qaadin iyo ereyo kale ay dadka shacabka ku qeylinayeen dadka ruuxiisa xataa dadka wax ka qabtay oo yani billahi ugu hore ninka dhulka wax ka dhigay dad shacabka ku jiro oo goobta ka dhawaa marka si isku mid ah ayaa la dhigi karaa oo mahadi bugaadin mudan ay qaybaha bulshada goobta joogay ay si aad uga qayb qaateen waxayna la shaqeeyeen la dhigi karaa hay'adaha amniga ee shaqada iskala ugu dambeyntii yani waxa ku xirxiran oo kale inuu qarax ahaa sidee lagu xaqiijiyay hadii la xaqiijiyana wax intee la uga ma qaraxyo waaweyn oo waday ma wax iska yar oo qof iyo laba inta la isku duubo wax yeelan karta mise mid dadkii meesha joogo dhan saameyn kartay wallahi horta marwalba ilaahay qadaroon bay noqon lahayd laakiin sida dadka hadda saraakiisha nabadsuud oo kale oo hawshan iyo hadda gacanta lagu la wareegiyo kale oo iyagu gacantooda uga furay waxay noo sheegeen in qaraxan uu ahaa mid jaakad loo isticmaalay jaakadu waxaa ku xirnaa maxaa la yidhahdaa ilaa 5 kiilo oo menis iyo balaas ayaa ku xirnaa sidoo kale jaakada jeebabkeeda waxaa ku jirtay maxaa la yidhahdaa ii sheeg fiilooyin kale oo iyagana dheeraada ayaa ku jiray marka sida saraakiishu ay nagu warabaxsheen waxay sheegeen qaraxan inuu ahaa qarax saameyntiisa leh laakiin maxaa la yidhahdaa ii sheeg muhiimku meesha ka dhacayna waxay ahayd in labadii fiilo hore inay xirmatay labadii fiilo ee dambe ee rabtay inay qaraxdaan inaysan qarxin si saraakiisha inoo sheegeen marka iyadoo dhacdooyinku ay yihiin kuwa iska qadaran haddana weli waxna aysan dhicin laakiin hadda waxaan ku sheegi karnaa kulley saa marka aad fiiriso xajmiga waxyaabaha lasoo saaray wax khatarteeda iskala ayahay wax khatarteeda